hadduu caawa kulo kasigada jecelaydiyo guri khayr leh kugu simay nimciyay gacaladayday gacantaydii midigay ubax wada guduudiyo ducaan kugu qalbinaya ubax wada guduudiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وحني هور فردة وولاشين داقو أصحابتي انتو رينو لسو جيكتو حالنا عاد بدو مهدسنتيهين انتو نقو عصبنو حالنا بليس كسو دوادا قلبي نجعل ولا نجعل عاد بدو مهدسنتيهين فضلا وحن كاعد سنينا فيديوغا هاداد كهشو إنا الليق نو سارتو هادو فيديوغا كو عجيبين إنا أصحابتا هادو وقود بسو وحي الرأي تسالي عاد نوهيسن إنا برتيدا كومنتيغا نوغو رابتو كل عاوة حد سليدين داق ما شاء الله فرحة وبدون ما كان موقت لبي صدنكي ولا ركيا جوزاي متك بود بيع ولا ركيا كل واحد سليدين داق وحا عاوة كفرحية محيط هاي وحرب عاوة فيديو جنينا هرتها حنبليو أن لسوكو بكرين هنودرو فنانة دين صوماليات أيام تنضم بكل مجا وما بهنا مجا عجين عن شيء وضد تقانان وفنانة ديني عالمي هايد يا ninba maalinba magaciisu kacaa ma sha Allah waa gabadhii magaceena Soomaaliyeed kicisay ee dhanka TikTok waxaan ku yiri dhalinyar fara badan oo daafaha adduunka ku nool waxaan ku yiri sida lagu sacabto mees jarakeka wada jarakeka la jarakeka wada waa fanaanadeen nicmo habi ayaan rabaa caawinaan halkan hambaliyo aan la soo koobi karin uga diro waxa leeyahay ma sha Allah guurkaaga waanu ku faraxnay Allah ka dhigo kii lagu nagaaday insha Allah adii soojkaagana waxaan nii rajaynaynaa xayaata qurux badan insha Allah awlaad khayr qabtana Allahna kala siiyo waxaan leenahay de ma sha Allah waa qoys Soomaaliyeed oo ku soo biiray qoysaskeena Soomaalida aad baan soo dhaweynaynaa insha Allah laakiin si kulli Soomaali waa taqaaniin Soomaali Nabi Maxamed yaa wax kasti waxay rabaan inay comment ka bixiyaan commentiyo badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed aan akhriyay waxa gabigooda balalaha gabadhu hadii ka way mustaqbal heshay maxaa ninkan baas daba dhigay sawtii gabadhu safraysay Ingiriiska u socotay nicmo habi sidii ka dhawaajisay aan baa sheegtay waxay tiri dalka UK waan ku socdaa casuumad waa looga fidiyo insha Allah way tagi doontaa laakiinse qofka bini'aadankii isaga og noloshiisa sida u maareysanayo nicmo habi shalay toole iyadoo single ayaan arkaynay ma sha Allah dad badan baa isweydiinay waxay dhaheen gabadhu inay single tahay heesta markii soo qaadaysay may ku soo darto yaa dad badan oo jeebkooga buuxo ayaa gabadha dafilaha la dhahay laakiinse ma sha Allah maanta ayuu dafay kii alla u qoray waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu Ilaahay soo wanaagsan uga dhigo sida ay rabtay iyo farxadeeda aan maanta arkaynay inay farxadeeda saa u sii socotay insha Allah inta kale waxaad maqli jirteen yaa gabadh aroosada ba arooskeegii ay fanaanin ka haystay yaa waxa kale caawani sida ma taqaanaan waa gabadhii fanaanadeena nicmo habi oo arooskeegii ka haystay iyadii يا gabdhaha Soomaaliyeed kolba wixii cusub way ka helaan kulli gabdha Soomaaliyeed baa caawa ilaa ayaantan ku seexanaya inay iyagana nin fanaaniina ay raadsadaan amba habeenka arooskeyga iyadna ay ka heesto ninkeyguna oo ka heeso marka waxaan leenahay Soomaaliyeed nolosha saastri miyaan dhahnaa noloshan way wajiye badan tahay maalin kasta qaab cusub aan arkayna way hadaan dhahno noloshii waalidiinteena waxaan ku sii jirno waxa maanta laabsan marka generation kastiba wuxuu leeyahay talaabo jidid oo isaga u gaara maantana waad aragtaan nicmo habi oo arooskeegii waxaan ku yiri iyadoo ka heestay yaa aniga arooskeegii soo dhaafay laakiin gabdhaha aan wali guursan kulay waxay isleeyihiin anaguna waa inuu wiilku habeenka noo heeso marka wiilalo waxaan ku yiri hawl badan baan ii taalo inaad hadda waxaan ku yiri heestad gabadha habeenka arooskaaga haduu qaadi lahayd hadda iska sii diyaari intaana laga tagin ayaan ku leeyahay marka inta aniga kaftan uga baxaya waxa la isweydiinayaa oo su'aasha meesha ay taala dadka badanka isweydiinayaan amba dadka social media ku xidhan amba dadka xiiseeya fanaanadeena nicmo habi oo ayaantan dambe noqotay yaa madaxweynaha farmaajo laga hadal haynta badna ma garatay
marka maanta Naciima waxa la yiri gabadhaas hadiyo koobi mustaqbal heshay haddayba de wadanada talaabsadee wax laga soo helay sharci laga soo helay u socotay hadiyo maxaa daba keenay inay nin isdaba dhigto in gabadha Soomaaliyeed amba gabadh kasta oo Soomaaliyeed amba nin kasta oo Soomaaliyeed waxaan sheegaya noloshiisa ma aha oo inuu xoogaa qadaadiica helo ee naftan had arkaysaan socoti ya cuntadan iyo lacagtan iyo waxa la helayo jirkay ka muuqanaysaa iyo waa aad maryo aad sidato laakiin qalbiga ayaa u baahan wax dhaya qalbigu lacagna ma cuno dharna qalbigu ma gashto laakiinse wuxuu u baahan yahay qalbigu qof dadka ka soo dhawaysta qof yacni ay kaliyoobaan qof waxay waalidkeed iyo walaalaheed ay kala xishootahay u sheegto ma garateen marka Nicmo Habi waxay istir maadaama Afrika hadda kadib aad diyaarad ka raacayso bal xabad kooyro waxaan ku yiri hadhow toolana aad xafiyo go'siiso guursaystir ma sha Allah laakiinse waxaan la hadlayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee fadhi ku dirirka ah oo gabadha iyo wiilka hadda caaw aroos galay raba inay hadiyo kow ay sheeko ka dhex bilaabaan oo oranaya gabadha hadda wayba sii socotee calaf ka wanaagsan iyo mustaqbal ka wanaagsan bi heli lahayd maxaa hadiyo kow daba dhigay inay nin Soomaaliya ay ka guursato ya marka ha laga hado gabadha waa aroos hala daayo maalmihii adduunkeyga ugu macaanaayo ku jirtaa oo la dhahayo shahrul asalka ma garateen marka gabadhan ha laga hado waxaan leeyahay Soomaaliyeed markaad gabadhu markay guursatana waa la caayaya hadduu nin xumeeyana waa la caayaya ya marka qabriga on baa nigaga amaan helayaa Soomaaliyeed isdajiya ha noqonin Soomaaliyeed hal iska daayo sidii shilin bari ku dhagtay camal ina qofka bilaadanka lagu dhago su'aashaas isweydiinaya oo isdhahaya Naciima hadiyo koowayba nolol gashay maxaa daba dhigay inay nin hadiyo koow Muqdisho jooga ay guursato marka horta waxaan leeyahay inta dhammaan su'aashaas maskaxdooda isweydiinaysa comment-yada ku soo qortay waxaan leeyahay inigu ma hubtaan gabadhaas Nicmo Habi marka ay Ingiriiska marka ay UK aado ma hubtaan gabadha Nicmo Habi marka ay UK aado inay helayso mustaqbal wanaagsan iyo nin wanaagsan lama hubo laakiin Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa og meesha ay nolosheeda iyo meesha ay awlaadeeda aabahood u joogo marka faraha uga qaado waan leeyahay Soomaaliyeed faraha looga qaado halala farxo ma sha Allah fanaanadeena arooskay ugu qurux badnaa ee Soomaaliya ka dhaca ayaa maanta gabadheena loo tumay ma sha Allah waan leenahay haddaan arooskii toddobaadkii dhawadan arkaynay Safiya Tusma oo laga bixiyay 120 geel ah ba maanta fanaanadeena Nicmo Habi waxaan ku yiri gabdhiyood waxaad moodaa midda kale inay isleedahay yacni ka dheere warnimano Allah laga boqo gabdhaha meherka inta lagama siineysaan haddana maanta waxaan soo gaadhay Nicmo Habi inay noqotay gabadhii Soomaaliya Muqdisho ugu meherka badneed oo lagu meheriyay 200 oo kun oo dollar ma garateen marka Soomaaliya hal naga daayo ciyaarta nimanka yala noogu dirin wiilasha de iska alla ogyahay duruuftooda hadiyo koow waxaan ku yiri maskaxdu ay daashay yacni xoogaa wax ururinaya ay rabaan gabadh inay ku aroostaan 200 waxaan hal naga daayo rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yacni meherku ka yar yahay ayuu yacni ka baraka badan yahay marka gabdhow wiilasha yacni jidka ku soo jira dariiqa ha ka xidhina arsaaqada ummadda ha ka xidhina dhihi lahaa marka waxaan leeyahay fanaaniinta is arooraysa ma sha Allah waan jecelnahay waan taageernaa waan igu faraxsanahay laakiin xoogaa meherkan afka laga sheegayo aanan arkayn gabadhiyo meherkii la siinayo loo tirinayo hal la maqlay hal la arkada hal naga daayaan leenahay waxaan rabaa dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed inaad u soo hambalyeysaan fanaanadeena sidii kulleeyda inaga hambalyadiina way noo taalaa dadkii cadaankiina waxaan ku yiri hawshooda wadanayaano gabadhii soo heystaa maanta la guursaday hadaa la dhaho dad badan baa subscribe kala noqon baa maleeya dhalinyar badan oo islaha gabadha Soomaaliyeed Hollywood ka gashay bal ku qabsada ya dhalinyar badan oo saas isdhahay caaw markay arkaan durbaba in Nicmo la dafay waxaan ku yiri in badan baa subscribe kala noqon baa maleeya laakiin waxa midda labaad ee rabo inaan ka hadlo waxay tahay dhammaan inta dhahaysa gabadha aroosadeen Nicmo Habi wiilka way ka weyn tahay Allah laga boqo gabadha maalintii hooyadeed laga dhalinayna inigu maad joogin wiilkan inuu gabadha ka weyn yahayna way iska cadahayba oo indhahan baa macalina miyaa la dhahaa ya
horta dadka ma inta indhahooga wax si fiican u arkin baa wax sheega. bal Soomaaliya videogaas gabadhaas arooskaas inta dib u soo daawataan bal waxaad ii soo sheegtaa iyadii wiilka midkeeda ahaan weyn yaa hadaanan anigu khaldanayn marka dhalinyaro hadii ninku weyn yahay iyo hadii gabadhu weyn tahayba labada qof iniga nimay weydiinta adoodii iyaga is aroostay iyaga is doortay iyaga waxaan ku yiri jacaylkooga iyo dana kale oo gaar ay leeyihiin iyaga isku raacay marka faraha laga qaado wiilka hadiye ko waxaan ku yiri gabadhaas cad ee quruxda badan leh mustaqbal ka dhigtayna hadiye ko yaan lagu dirin gabadha way sii socotaa iyo African nin jooga maxay ku fali iyo marka iyadba way fikirtay maadaama ay dal shisheeye u socoto waxay u baahan tahay qof Soomaaliyeed oo talaabo kasta qaado iyo wax kasta oo soo food saaraba la qaybsada ayay rabtaa marka Soomaaliyeed gabadha u duceeya waxaan ku yiri umar ducadeeni Nabi Maxamed Ali sallallahu alayhi wasallam barakallahu fiikum dhaha intaan video xiga aan ku kulmi doono waxaan leeyahay inagoo nabada yaa anagoo nabada fadlan hadana videoga subscribe noo saarin in channelkayga subscribe noo soo saar ku soo bir asxaabta noo dhow si video kasta aan soo gelino uu ku soo gaadho waxaan leenahay ciao ciao